waayahay waa war degdeg ah oo aad u xiiso badan waaye. waxaa yimid magaalada muqdisho ninkaas wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta magaalada muqdisho imaaday. adiga wax weyn haddaysan kula ahayn xusuustaada yar, xusuustaada daciif ah, dalka waxba kalama socotid. waxaan rabaa maanta taariikhda inaan idinka soo bilaabo 2015 iyo muhiimadda ay leedahay ninkan imaashihiisa iyo guuxa iyo shanqarta ka dambeyn doonto, iyo sidoo kale imaaraadka carabta oo wejigabax goobo fara badan oo Afrika ah kala kulmaayo, iyo halka ujeedo ee ugu weyn oo maanta soo dedejisay maxalli imaashahan aan hore loo sii qorsheenin ninkaas carabka ah imaaraadka carabta ka socdo iyo soo noqoshada madaxweyne xasan sheekh maxaa keenay Turkiga waay. sheekadaas aan rabaa inaan idinka dabageeyo wax yar, laakiin xusuusta aad dib idiin celiyo. 2015 imaaraadka carabta wuxuu ahaa dalkii ugu horreeyay ee isku dayay sheekada Turki hadda muqdisho uu ka wado uu rabay imaaraadka carabta inuu magaalada muqdisho ka sameeyo, oo dekadahan imaaraadka carabta laba dekada ugu waaweyn uu Soomaaliya ka maamulo oo midda Boosaaso iyo midda Berbera waaye. horta ogaaw qorshaha ugu weyn imaaraadka carabta wuxuu ahaa magaalada muqdisho in dekad weyn uu ka sameysto, ciidamo asaga uu tababartay magaalada ay qabsadaan. waa sida Turkigu uu wado waaya, jookadii asaga uu degay, ciyaartii asaga uu degaa lagala wareegay. 2015 markii imaaraadka carabta ciidamada Soomaaliya u tababaray, waa taqaanaa waagis madaxweynaha joogay, bas markuu ciidamada Soomaaliya u tababaray 2015 iyo 16 wuxuu ku mashquulsanaa imaaraad carab tababar iyo hubsiin iyo lacagsiin ku mashquulsanay. 2017 qisa cajiib ah dhacday oo ay qasabtay inay fahantaan oo Soomaaliyana ay qusayso. 2017 adduunka carabta waxa ka dhacday taariikhdii ahayd in carabta ay isku imaato oo go'doon la saaro qadar. yaa xasuusto gabi ahaanba carabtii oo uu hogaaminayay imaaraadka carabta wadamada khaliijka waxay xiriirka u jareen qadar laga xanaaqsanay, adiga siyaasadii waxba isku haysteen. 2017 iyadoo xiriirka loo jaray qadar oo imaaraadka uu isleeyahay oo geli Soomaaliya doorasho ka dhacday, si lama filaan ah waxa ku soo baxay doorashadaas ninkii ay wateen qadar ee la dhihi jiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. yaa xasuusto imaaraad carab waaga ku baryay indhihiisu saas u taagay, xanaaq asoo bastiis ah oo alaabtiisa gurguranaayo. Farmaajo lama shaqeyn karo soo dhahayo waa tii al-shabaab ee galeera dare. laba jug la iskugu daray, jugtii Farmaajo ku soo baxay iyo jugtii al-shabaab ee ku galeen saldhigii la dhihi jiray Gordon oo madaxweyne xasan sheekh markii dambe gadaal uu ka bedelay. 2017 saaxiibka marka intuu alaabtiisa gurgurtay muqdisho ka guuray imaaraadka carabta, wuxuu u guuray Berbera iyo Boosaaso u guuray. saas uu u guuray waxaa magaalada muqdisho soo degay oo xariga looga jaray saldhigan military ee weyn oo loo yaqaan Turksom. Turkiya soo degay magaalada muqdisho. imaaraadka carabta saas uu baxayba saldhiga ugu weyn ee military waxaa furtay Turkiga furtay. Turkiga markuu furtay isla markii Turkiga wuxuu bilaabay ciidamada gorgor kal ilaab in uu tababaro hub ciidan qalab lacag wax walbaba magaalada muqdisho ay saraakiil waaweyn oo tababarka inuu keeno. jookadii Mareykan fahmay, Mareykan asagana Bardooglu waa tuu dalaq soo dhacay oo uu bilaabay inuu asagana tababarto ciidamo loo yaqaano danab. taariikhda waa in ay xasuusiyo, waa hilmaan beyntii Soomaaliya. waaye sheekada sidii u ahayd imaaraadka carabta wuxuu noqday naag la furay, raali aad gabdhaha, naag la furo sanka taagayso iska xanaaqnaa. saaxiibka marka dawladda centraalka ama federaalka uu dhan walba go'doon ka saaray imaaraadka carabta. waa tuu Berbera Ethiopian kula galay heshiis, ciidamo Ethiopian xitaa Berbera la keenay, laami dheer oo Ethiopianku uu sponsor gareeyay, qarashkan uu bixiyay imaaraadka carabta. waa tii Berbera ilaa Ethiopia la saaray, waa tii ciidamada badda Puntland loo tababaray asagoona soo marin magaalada. waxaas dhan waa ogtihiin, intaas dhan waa okay, ma diidinin anaga. Puntland iyo Soomaaliya way ka faa'iideysteen fursadan laftirkooda kal ilaa baa idin leenahay. waayay haddeertaan imaaraadka carabta waaga kusoo bariyay meesha raba inay fahantaan. Suudaan waa lagu kala baxay. Suudaan dagaalka ka socdo waxaa guul dareystay cidda ay wadatay imaaraadka carabta, waxaana guuleystay cidda ay wadatay Turkiga. Suudaan qolal dhaho RSF iyo ciidamada Suudaan dagaalamaya. RSF ta waxaa hub iyo qarash iyo wax walbaba ka daba waday imaaraadka carabta ka daba waday. Turkigana wuxuu hub iyo qalab iyo tababarba ka daba waday ciidamada kale ee hadda guuleysanayo, droniska iyo hubka iyo teknolojiyada iyo wax walba Turkiga oo fiican imaaraadka carabta. intaas ma isku dardarto horta xisaabtaas dheh. okay xagga eedig waxaa rabaa hadda magaalada muqdisho inaan dib ugu soo laabano, maadaama imaaraadka carabta hadda horta sawirkan ila fiiriya. sawirkan saa ujeedaan laamu dekaduu ku leeyahay imaaraadka carabta, sidoo kale Djibouti dekaduu ku leeyahay,
asmara dekaduu ku leeyahay berbere dekaduu ku leeyahay boosaaso dekaduu ku leeyahay marka imaaraadka carabta wuxuu islahaa baddan cas ee dagaalka ugu weyn hadda soo socdo ee qofkii meeshaas qabsado ama xooggiisa uu joogo iskale meeshaas adaa kablaadir ka noqonayso islaano imaaraadka carabta marka hadda wuxuu fahmay turkiga jookada uu ciyaarayo iyo saldhigga magaalada muqdisho iyo howlahan socdo turkiga iyo xulafada masar iyo maraykankii iyo yani isfahankaasa ninkan marka tushuush geliyey bal wuxuu isdhahay xiriirkii xumaaday ee halaabay magaalada muqdisho bal dib u soo celi oo waxaa kaloo laga yaabaa aniga ila tahay caawa in ninkan imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho yimid uu rabo xasan sheekh inuu ka dhaadhiciyo xiriirka turkiga in la xumeeyo ama la jaro ama wax un yani lagu sameeyo mana ila ahan magaalada muqdisho madaxda fadhiso hadalkaas inay aqbalayaan ma ila ah waa idin sheegata ka hor xiriirka soomaaliya iyo turkiga saasuu noqdaa idin dhaha marka imaaraadka carabta kolley tuugnimada lagu yaqaanaa waxaa isleeyahay shirqool iyo ajendo kale ayay wataan dowladda kuwaan hadda muqdisho fadhiyo ma ku dhici doonaan shirqoolkan mise way ka badbaadi doonaan aniga intaas ayaa maanta taaganahay laakiin waxaa isleeyahay hal jookaa laga yaabaa xasan sheekh inuu ciyaar caawo waxaa laga yaabaa in uu ninkan ka dhaadhiciyo berbera iyo boosaaso gas u sii saaxib magaalada muqdisho ka amar qaado sida turkiga oo kale muqdisho waa ballaaran tahay dhulaa lagaa siinaa adigana soo deg haddaad idin soo koobo warka magaalada muqdisho in laga dhigo jabuuti ilan jabuuti shiine iyo maraykan iyo faransiis iyo talyaani iyo spanish balaaya dhan aa saldhig ku leh magaalada muqdisho ma waxay noqon doontaa meesha awoodaha waaweyn ee imaaraad carab iyo turki iyo maraykan iyo jinni oo dhan ee isugu imaadaan oo lasoo fariisto 10 sano ee soo socoto intaas maskaxda ku sii haya